Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan inta ku xiran channelka Ushirika Production. Aad iyo aad baan nii salaamaynaa meel kasta ood ku nooshihiin. Intaasi kadib maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay labada fanaan ee ku haysta codka raabka, kuwaas oo bilooyinka ugu dambeeyay uu ka dhaxeeya dagaal xoog leh. Haddaba labada fanaan yaa waaye fanaanka loo yaqaano Ilka Case Qays, kaasi oo mar hore kusoo biiray fanka soona raabi jiray sanooyin hore oo lasoo dhaafay, iyo sidoo kale wiilka da'da yar ee kusoo biiray sanadadii dambe ee lasoo dhaafay dhanka raabka, Sharma Boy. Dagaal xoog leh ayaa dhex maray bilooyinkii ugu dambeeyay ee lasoo dhaafay, ayaga oo isweydaarsanayay codadka raabka iyo heesaha, kuwaasi oo ay dadku ku xamanayeen inay midba midka kale ula jeeda hees kasta uu soo qaado. Heesihii ugu dambeeyay ayaad waxaad moodaa midba midka kale inuu ugu hanjabayay, haddana taasi waxaaba kaaga sii daran, waxaad moodaa inay isweydaarsanayaan dhanka heesaha raabka, kuwaasi oo cayb, booto iyo waxyaalo kale oo fara badan iskugu jiraan. Taageerayaasha Sharma Boy iyo Ilka Case ayaa dhanka social media isla dhex wareegayay inay labadan fanaan isdagaalsan yihiin, balse ilaa hadda af buuxa lagama hayo labadan fanaan ee la sheegay inay isku wedaarsanayaan dhanka cayda raabka heesaha. Haddaba Sharma Boy oo ah wiil yar oo sanadadii lasoo dhaafay kasoo baxay magaalada Muqdisho waxaad moodaa inuu leeyahay taageero aad u fara badan, kuwaasi oo intooda badan ku nool wadanka Soomaaliya, balse aan yaraysanin sidoo kalena daafiyaha caalamka ee kale. Sharma Boy ayaa waxaa aad looga taageeraa dhanka dalka Afrika, khaasatan Kenya, Soomaaliya iyo sidoo kaleba Ethiopia oo Soomaalidu aad ugu badan tahay. Sidoo kalena fanaanka weyn ee Ilka Case Qays, kaasi oo mararkii horeba lagu aqaanay raabka in muddo ahna soo heesayay, ayaad waxaad moodaa inuu balyahan dambe la tartamayo wiilka yar ee soo baxay sanadadii dambe, isaga oo heesa raaba ku karbaashayay. Heestii ugu dambeysay ee ahayd Ashahaado Waryaa, balse taasi waxaa ku horeysay tu kale oo ahayd Skiifo. Dhammaan heesahaas ayaa waxaa la sheegay inuu ku waday Sharma Boy. Haddaba asxaabi lama hayo war rasmi ah oo u dhaxeeya labadan fanaan, balse waxaad moodaa markii lasii fiiriyo heesahooda inay wax ka jiraan waxa la sheegayo. Haddaba lama hayo war ansax ah oo labadooda ka soo baxay, balse waxaad moodaa heesaha ay qaadayaan inuu midba midka kale ula jeedo saga. Haddaba taasi ha ahaatee, balse haddana lagama hayo war sax ah oo ka soo yeeray labadooda inay isdagaashan yihiin, misana lama hayo waraysi guud oo laga qaaday labadooda oona lagu sheegay inay isgafsan yihiin. Ilka Case Qays ayaa isagu dhankiisa wuxuu sheegay inuuna la tartamaynin dadka ka yaryar. Intaasi waxaa noogu dhannayd wararkii aan ka soo aruurinay Sharma Boy iyo Ilka Case. Daawadayaal, wixii kusoo kordho halkan ayaad nagala socon doontaane, fadlan si aad ugu xirnaato channelka Ushirika Production, subscribe saar, like-tana ha iloobin, sidoo kalena inaad sheegarayso isku day. Like-tana waa daawadeena. Aad iyo aad baad mahadsantiin meel kastood caalamka ka joogtaan. waxaan ileenahay caafimaad kheyr qaba ku waara. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.